kulanti wanaagsan daawadayaal markale iyo barnaamijkeeni falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ka maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn Mareykanka oo ka digay dagaal ka dhaca badda South China Sea iyo cartanka Shiinaha oo ku tilmaamay handadaad xun oo caalamka khatar gelin kara qodobada kale daawadayaal ka maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda diyaaradaha la calmaday ee F-35 ka dalka Mareykanka oo Imaaraadka in laga iibiyo Mareykanka uu joojiyay iyadoo uu sii socoto talaabooyinka Biden ka cusub uu ka qaadayo dalalka Carbeed ee Khaliij Iran oo shuruud adag iyaduna ku xidhay siideynta markab ay xoog ku haysato xaaladda diblomaasiyadeed iyo ciidan ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo sii xumaanaysa xilli dalka Soomaaliya uu doorasho soo diyaarinayo qodobadaas iyo kuwa kale daawashada qiimaha ku maqli doontaan waa 31 Janaayo 2021 waa maalmaha axada sidoo kale barnaamijkeeni maxaa xiiso leh oo xiiso badan leeyahay maqli doontaan aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysay ee dalka Kakan ee la yiraahdo Myanmar ayaa laga baqayaa in militarigu ay ku soo laba raadleeyaan isla markaana ay talada dib uga qabsadaan haweeneyda dhiigga ku falxalatay iyo militariga wada socda kuwaas oo hadeerta isku khilaafsan doorashadii dhacday ee dalkaasi ka dhacday sida wararku ay sheegayaan Myanmar baarlamaanka cusub ee la doortay oo markaas la rajeynayay in maalinta Isniinta ay ugu horeyn ay kulmaan ayaa ka baqaya talaabo militari oo ay militariga dalkaasi ku tooqayaan in ay ku qabsan doonaan talada maamulkaasi kadib markii doorashadii bishii November 2020 lagu murmay gaar ahaanna ay soo baxday madmadow xoogan oo ku aadan cidda rasmiga ah oo ku guuleysatay taliyaha ciidanka qalabka sida dalkaasi Min Aung Hlaing ayaa waxaa la sheegay General Min Aung Hlaing ayaa waxaa la sheegay in uu isu diyaarinayo talaabo militari oo qaado isagoo sheegay in xaaladda dimuqraadiyadda ee dalkaasi ay isu bedeshay mid ku shubasho ah isagoo sidoo kalena ka digay in ay qaadi doonaan talaabooyin wuxuu yiri dastuurka dalka waa sodohda iyadoo ayuu yiri ama sodoho kale waxaana qaadi doonaa ayuu yiri talaabada dastuurka ku taageeri doono isla markaana waxa muhiim ah ayuu yiri in talaabooyinka qaarkood la tirtiro sida ugu rasaab badan arrintan ayaa u muuqata in mar kale ay god dheer ku ridi doonto dadaalo la doonayay in Myanmar laga soo bixiyo gacanta Kakan ee xubnaha ay ku hayaan halka dagala socotaan daawadayaal wararkii waxaana dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan ama gaanka caalamka oo dhan iyadoo dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay xaaladoodu mar ka dambeysay si darsanayso isla markaana ay socdaan weerar dhinaca diblomaasiyadda magaalooyinka New York iyo caalamka oo dhan oo raqal oo kala diray Soomaaliya ay sidoo kale isku diyaarinayso inay midowga Afrika ay u dirto cabashadeeda ugu dambaysa taas oo ay doonayso in Kenya laga furdaamiyo ayaa waxaa la sheegay in cilaaqaadka labada dal uu muuqdo mid godka ku sii dhacaya dhinaca magaalada Nairobi xarunta Kenya ayaa markaas ka soconaya talaabooyin ee dowladda dalkaasi Kenya ay doonayso in ay ku muujiso in ay lug weyn ku leedahay kana mid tahay dalalka markaasi lafdhabarta u ah inay Soomaaliya siyaasadeeda jaangoyaan balse waxaa la sheegay in sidoo kale urur goboleedka IGAD uu haatan culays aad u dareemayo kolkii dalkii labaad ku hanjabay inuu ka baxo horey ayaa dalka Eritrea looga saaray ama ay uga baxdo haatan ururka ayaa la sheegay in uu ku jiro maalmihiisii ugu adkaa kolkii ay Soomaaliya ku eedeysay in guddigii la yidhi xaq raadintu ay ahaayeen kuwo sida muuqata laga niyad jabay dabadna hal dhinac raacay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasiirkeeda Maxamed Cabdisaaq Abubakar ayaa ku mashquulsan inuu waraaqo iyo fariimo waaweyn u gaarsiiyo caalamka sidoo kale guddiga weeye dabcan fadhiyo magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay inay maalmihii ugu dambeeyay dhan ay doonayeen in ay qaadaan talaabooyin diblomaasiyadeed adag waraqaha diblomaasiyadeed la kala tirtirayo ayaa dowladda Kenya dhankeeda oo iyaduna golaha ammaanka qaramada midoobay gashay ay doonaysaa inay aad iyo aad u sii adkayso afayeenka dowladda dalkaasi Kenya Cyrus Oguna ayaa sheegay in aysan faragelin aysan ku haynin sidoo kalena waxa uu sheegay inay niyad jab ka tahay hadalka ka soo yeeray Soomaaliya ee ah in ciidanka Kenya KDF ay Soomaaliya lumisay dhamaanba kalsoonidii ay ku qabtay Soomaaliya ayaa ciidankaas ku eedeynaysa inay isku gadaameen magaalooyinka waaweyn ee ugu horeysa magaalada Kismaayo xarunta Jubbada Hoose bedelkii ay aadi lahaayeen goobaha dagaalada ay ka soconayaan iyo inay baneeyeen 10 tuulo oo muhiim u ah sidoo kalena Soomaaliya waxay ku eedeysay ciidanka dalka Kenya in ay hanti Soomaaliyeed si kasta u burburiyeen gaar ahaan shirkadaha Hormuud iyo Samtel oo ay ku tilmaameen in ay ka burburiyeen hanti badan waxayna sheegeen Soomaaliya aysan uga hadhi doonin talaabooyinkaas iyo kuwa kale dhanka kale Kenya waxay ku eedeysay Soomaaliya in ay doonayso inay dusha ka saarto eedo iyo cadaadisyo dowladda Soomaaliya ka haysta ay yiraahdeen gudaha dalka Soomaaliya halka dagala socotaan daawadayaal wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda ururka dhaqdhaqaaqa waxa loo yaqaano danaynta dadka midow naftooda ama noloshooda Black Lives Matter dhaqdhaqaaq movement dhaqdhaqaaqa loo yaqaano ayaa waxa uu ka mid noqday dadka ku guuleystay ama ururada ku guuleystay biladda nabadda ee caalamka loo yaqaano Nobel Peace Prize inkastoo biladaasi dhawaanihii ugu dambeeyay oo dhan sumcadeedu ay leecday kolkii lagu eedeeyay inay siisay dad horay gumaad wax uga qayb qaatay ama taageeray oo qorayaal ay kamid yihiin
haddana sanadkan 2021 ayaa loo gartay sida uu sheegay MP-ga loo yaqaano Peter Edi ee dalkaasi Norway oo kamid ah guddiga maamulka haya waxaan u aragnaa ayuu yiri in ay wajaheen loolan aad u adag kaasoo ay Mareykanka gudihiisa ku qabsaday ololaha loo yaqaano ololaha danaynta dadka madow noloshooda Black Lives Matter isla markaana ay sidoo kale ay ku fidiyeen ololahooda Europe iyo Asia oo ay kaga hortageen waxa ay ku sifeeyeen markaasi midab kala sooca iyo waliba cadaalad darrada ku siman ee sinaashaha ay ku raadinayaan waxayna warmurtiyeedka sidoo kale lagu yiri tani waxa ay kor u qaaday aadanaha iyo karaankooda ah inay ka hortagaan kor u qaadka waxa loo yaqaan dhibaataynta dadka madow ee ku dhaqan dalalka Canada iyo Mareykanka ayaa bariga ugu dambeeyay oo dhan ka cabanaya cadaadis aad u xooggan ciidamada booliiska ee dalka Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay geysanayaan dagaalo dadban oo ka dhana dadka madowga maamulka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden warmurtiyeed uu soo saaray ayuu sheegay inay fasaxayaan lacagtii la sii jiray hay'adda loo yaqaan horta waxa ay sheegeen horta inay sii doonaan laba lacagood lacag waa lacagtii toos loo sii jiray maamulka Palestine Authority ee loo yaqaano maamulka Palestine lacagta kalena waa lacagta hay'adda qaramada midoobay ee qaxoontiga u qaabilsan dalkaasi Palestine ee dadka reer Palestine ee dunida ku duraysan sii jirtay waxa ay sheegeen in xubnahan ay yihiin mid aad muhiim ah sida laga soo xigtay markaasi siyahayaha safiirka dalka Mareykanka ee qaramada midoobay Richard Mills waxa uu sheegay in muhiim tahay in dhaqaalahan uu waafaqsan yahay sharciga kaas oo ku tilmaamay in gabi ahaanba aysan muhiim ahayn in la sii raaco siyaasadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kaas oo isagu si halhaleel uga qaaday talaabooyin adag oo cadaawad leh ayaa dadka reer Falastiin cilaaqaadka tan waxa ay tari doontaa in la siiyo waxtar toos ah oo Mareykanku uu jeebka ugu guro ayaa la yiri maamulka Falastiin si looga caawiyo inay ka kabmaan dhibaatooyinka dhulka lagu leeyahay magaalada Tel Aviv ayaa uu horay Mareykanku uga soo raray safaaradiisa wuxuuna kale magaalada barakaysan ee Qudus taasina waxay keentay caridaad iyo xanaaq aad u weyn safiirka dalka Mareykanka uu u magacaabay Israel David Friedman ayaa kamid ahaa dadkii sida weyn isagu ugu hortagay in gabi ahaanba cilaaqaad lala sameeyo maamulka Falastiin isaga oo ku dadaalay inuu hagaajiyo cilaaqaadka Israel iyo Mareykanka gaar ahaan labadii maamul maamulka Netanyahu iyo maamulkii Trump ee galbaday shirkadda diyaaradda Qatar Airways waxay ku dhawaaqday in ay joojisay si ku meel gaar ah duulimaadyada ay ku tagi jirtay isku tagga Imaaraadka Carabta Koonfurta Afrika iyo dalka Rwanda warmurtiyeed ay soo saartay diyaaradda caanka ah isla markaana kamid ah diyaaradaha duulimaadyada sameeya dunida kuwa ugu wanaagsan ayaa waxay sheegtay inay si ku meel gaar ah u hakisay duulimaadyadeedii kolkii ay sheegeen in ay ka heleen dalab ku saabsan in arintaasi la soobiyo dalka UK oo asagu ku xidhay shuruud in diyaaraddaasi haday dad ka soo qaado dalalkaasi inaysan imaan karin halka dalka UK waxayna sheegeen arintan looga goleeyahay xaqiijin wax lagu sifeeyay xanuunka faafaha daran noociisa cusub ee dalalkaasi ka bilowday ilaa hadda lama xaqiijin in dalka isku tagga Imaaraadka Carabta uu kamid yahay laakiin dalalka Koonfurta Afrika iyo Rwanda ayaa maalmihii ugu dambeeyay lagu xamalayay in xanuunkaasi uu yahay nooc cusub war qoraal ay barta Twitter-ka ay ku leedahay shirkadda soo saartay iyo sidoo kale sheegtay in ay sii wadi doonto ayay yiraahdeen qaar kamid ah dalalkaasi oo talaabo lagu qaadi doono laakiin shirkaddu ma aysan sheegin inay xanuunka faafaha daran awgeed u joojisay duulimaadyada iyo in madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin waxa uu saxeexay heshiiska loo yaqaan New Start kaasoo New Start oo looga jeedo markaasi in waxa loo yaqaan qorshaha bilowga cusub oo ah mid la doonayo in lagu control ama lagu xakameeyo hubka nooca loo yaqaan intermediate range nuclear force 3D kilo jiray ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 2019 Mareykanka ka saaray asaga iyo dhigisa cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay maalintii Saalisada ahayd waxaana ka wada hadleen in qanaaco laga wada yeesho dib u dhigista bacriminta iyo badinta hubka faraha badan ee ah gantaalo qaadi kara hubka nuclearka laakiin rida gaaban iyo mid dhaxba ku circiri kara kuwaas oo burburi kara goobaha dhadhow iyo kuwa markaasi dhexdhexaadka ah waxayna tani kamid tahay talaabooyin kala doonaya in dib looga dhigo khatarta dhinaca tartanka hubka nuclearka oo soo badanaysa bisha February 5 2026 ayaa la gaarsiiyay taasoo ka dhigan muddo 5 sanadood dib loo dhigay heshiiska taasoo waxtar weyn u ah ayaa la hortagga hubka la isugu tooqayo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qorshahan bilaabay afayeenka aqalka guduudan ee dalkaasi Russia Dmitry Medvedev ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda oo dhan ay tahay in adduunka laga gaaro dagaal dhinaca nuclearka inuu isku bedelo tartanka dhinaca nuclearka hadda soconaya hagaag dawadayaal qaybta labaad daqiiqad